بعض الصحافة استاد وقرب تاجنتين ودوديست حقوق ورياشة runtii shalay iyo maanta way soo eg tahay sababtoo ah dawladdii shalay jirtay waxay u joogtay caburinta suxufiyiinta Soomaaliyeed dawladda hadda madaxweynaha uu yahay Xasan Sheekhna waxay ku bilaawatay caburinta suxufiyiinta Soomaaliyeed runtii waxaan rabaa inaan arrinta wasaaradda warfaafinta aan dul istaago gabi ahaan aniga waxaan qabaa in la baabi'iyo wasaarad warfaafin oo dalka ka jirta marka asaas leeyahay waxa waa adduunyada waa laga baabi'iyay mana ka jirto wasaarad warfaafin waana sababta soo celcelinaysa khilaafaadka dawladda iyo warbaahinta madax bannaan eega meelaha ay ka jiraan dictatorada waxa ka jirta wasaaradda warfaafin waxa loogu talagalay inay ka shaqeyso dalka la doonayo in lagu caburiyo wariyaasha gudaha wasaaradda warfaafinta ku jira ay xantaab waxaan leeyahay dhagaxaanta aad soo duureysaan nama soo gaarayaan si kastoo aad u soo tuurtaan waa idinka guuleysanaynaa waxaan ku baaqayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxweynaha uu ka yahay in marka hore ay sii dayso si sharud la'aan xogayaheena Cabdalla Axmed Muumin oo u socday safar Nairobi oo kaga qayb galayay shir caalami ah oo halka ka dhacaya arrimaha saxaafadda adduunyada looga hadlay ayuu rabay Cabdalla Axmed Muumin markuu ka dhoofay garoonka nisa ay gacanta ay ku soo dhigaysay xaaladiisa oo ka walacsanahay marka xigta waxaan leeyahay madaxweyne shalay cabashadii aad ka qabteen dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ay taagan tahay shalay ninkaad soo adeegsanayseen ayaa maanta na dhibaateynay xafiiskeena wali waxa ka taagan taag ciidamaha reerihiisa taagan ma u dul qaadan karno in shaqada xogeeyna xirateen oo idin xiran ilaa hadda aan sii deyn haddana ma u dul qaadan karno waxaan ku baaqaynaa in marka hore xafiiskeena loo ogolaado shaqaalaha inay galaan ciidan far badan 24 saac ku hareersanaa ciidamada joogay xafiiskeeni waan gali la'anahay kuwii ku jiray ee gudaha ku jiray ayaa soo bixi la shaqada ayaa ka socon laadahay dawladda waxa tusaale u ah in habeen madow ciidamo ka socda nis ay u dhaceen xafiiska SJS muuqaaladii aan soo bandhignay haddana waxa socota in ciidamada hareeraha ay ka taagan yihiin xafiiskeen markastoo goobta tagno ciidamada jooga marka waxaan leenahay dawladda marka hore laba shay ha samayso tan koowaad Cabdalla Axmed Muumin ha sii deyso si sharud la'aan tan labaad ciidamadeeda ha ka dulqaado xafiiska SJS oo hareeraheed ciidamo ay dhigtay taasna waan ku baaqaynaa ciidamada markaan ku celinaya ciidamada dharcadka ah ee ku sugan hareeraha xafiiska SJS dawladdu waxa ugu baaqaynaa in halkaas ay ka qaado marka xigta Cabdalla Axmed Muumin hal soo daayo marka saddexaad waxaan ku baaqayaa si wada jir aan ugu baaqaynaa in wasaaradda warfaafinta oo ah wasaarad u taagan inay dhibaatayso suxufiyiinta dhibka la soo maray waxa ku ah wasaaradda warfaafinta marka hore in la baabi'iyo guddi madax bannaan loo saaro ma shaqeyn karto xilliga wixii ka dambeeyay wasaaradda warfaafinta dawladda uma baahna waxaan rabnaa baarlamaanka in arrintan uu ka fariisto uu baabi'iyo sababtoo waa caburin waan ognahay waxa u soo joognay shalay waxa lagu tiimbareynayay Abuja inuu shabaab yahay maanta waxa la taagan yahay wariyii xaqiiqda ka hadla waa shabaab halkee laga galaya marka sidee wax loo sheegaya sidee wax loo tabinaya halkee la aadaya meel la aadama anaga shabaabna uma shaqeyno warka shabaab ma bombino dawladdu haday shabaab rabto waa hala dagaalanto annaga waxaan rabnaa wadada 2009kii annaga diinday in aan u hogaansano go'aan ay soo saareen al-shabaab anaga diinay waa sababta bakaaraha naga soo waday waa sababta bakaaraha warbaahinta dhan ay ugu soo carareen waa waardi dadkeena asxaabteena dileen waa ognahay laakiin dawladdu waxaan ka rabnay inaan dhahdo war sidee wax loo sameeynaya waxa kale oo jirto agaasimiyaal hadda loogu wacay wasaaradda warfaafinta agaasimiyaasha waxaan dhihi lahaa war ka jooga saaxiibkiina xiran walaalkiina xiran bari idinkeeda ku dhici kartaa annaga kaliya ma Cabdalla kaliya ma anay ugu dhici kartaa midka kale ku dhici kartaa marka meel ha lagu soo wada talaabada hadda ay dawladdu ku socoto haddii aan hal mowqif hal go'aan laga qaadan waxay dhirin doontaa in qof walba wari ah Muqdisho ka shaqeey inuu bari ka cararo sabab la xiriirta hadal ka soo yeeray dawladda sabab la xiriirta dawladda micnaheed hadal ka soo yeeray wariyaasha hal dilo waaye marka yeelay anaga shabaab uma shaqeyno warbaahinta shabaab shaqeynaysa halkee joogta warbaahinta al-shabaab bomboniso intee ku aragteen cod warbaahin al-shabaab intee lagu arkay marka waxaan u aragnaa wali waan ku celinayaa hadalka wasiirka xigeenka warfaafinta ka soo yeeray waa mid la doonayo in lagu caburiyo wariyaasha lana doonayo in lagu dilo lagu banaysto dhiigga suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Muumin hal soo daayo agaasimiyaasha loogu wacay wasaaradda warfaafinta ha ka joogaan waa maasantiin